أولى بحب الله إلهي أو أوليسا إنا جعلانه إلهينا أبو ري أنه جرين يعني إنسانكم مراحل بصومري يعني مرحلة كستو هذا أتقصوا أنتهاي ديب هذا ظن نقطه وحد وأنا يسا إني الدنيا ذن صومرتي وقت آذن جرين أن لو أقول مقع آذن لهين وحلا وحتى ينجرين إلهي باكو أبو ري برحمته وإحسانه الله رب العالمين وكا علوشه يذن نقو أبو ري نقو دقاليي نقو برباريي الله رب العالمين حنجر يرو ديغا أديغا أو وكا المقالين كوهيدا كوغو إلالي إن عندنا كوباهن إلهي واككو إلالي واككو أبو ري واكا سور كو دمشتري نولش هذا كو دمشتري هل كان مركات كو جرتي واكا كقوديي عنتا كسيي أن عدنا كو وكالانين عندنا كوغو هلينين المهم مركي علوشه يدود روح ذا أي قشو أي نولادان عنتا يباهيه المهاس عنتا يباهن علم كلمة هذه قال لك هضية أنا قا إسك هضية قف كستو ميشان فرديان لهضية وحا إلهي كاقودي حدون هذا أي إلهي حرك كحري كحرا على شهية من العرك هذا كحرا عنتذا أيضا أي عنته قيب كمله أي إلهي أبدلي إنه كاسي أذيقه قود كاقا ديو أو كوغو قوديو كاس يا كاقا أوليسانين جعلاته جعلك كبضا يا إسكاله كميشا كوغو دقالي كوغو إلالي عرضو وحادو أهيد هالش وحادو أهيد حركاتك هو يدا أي دقاقيسو إنها تكبا صور دعضو يا كو إلالي أو كبرباري أو دبدين كو تيسيري أو وددي كو سهلي أو مركات صوب بحذينا dadku xarigii cuntada ku siinay waa gooyeen aan meel kale ku baahine ilaahay subhanahu wa ta'ala hooyada caana kaaga keenay bal fiir rabbigan wa rabbul alamin wa akramul akramin makhluuq kaste baahidiisu ogyahay ilaahay wuxuu ogaaday kuwan kale xayawaanka annaga nalamid maxaan ka wadaa ariga iyo geela iyo looda isku mid baan nahay مخلوقات بانها إله بنا وضع أبوري إلهي وحو أقادي قولتهاس أريقا إيو لوضا إيجيلي إيو أفر لقود بيكو سعودان هو يدي إلمه ما حنباري كرتو قعانا يكو حنبارتو أو لابتا يكو قبتو أو ناس كذا كله جسم ما هيسو بدأت إلهي في رب العالمين رب كل شيء إنه إياه ما دام أساس وسمي يسقو ساقو تلقلي ilmihii hadda dhashay ee ariga ahaa waxartii hadda dhalatay isla markaa way dhaqaaqaysaa afarteeda adin bay ku istaagaysaa way dhaqaaqaysaa iyada hooyadeed u tagaysa naaskeeda jaqaysa ama halka ka baxayso oo iska cunaysa cawska iska cunaysa hadday dhalatay isla markii way dhaqaaqaysaa muxuu saa u yeelay rabbul alaamiin wuxuu ogyahay in hooyo sida bani aadamka oo kale gacmaha ku qaada oo ilmihii xanaanaysay inaysan jirin marka uma baahin ama adiga Soomaha ilaahay wuxuu kugu tala galay calaaqa wanaagsan inay idin dhaxmarto adiga iyo hooyada iyo waalidka aabaha maxabba iyo kalgacayl baa ilaahay qalbigeeda galiyay laba gacmood ay kugu soo qabsatay ilaahay u sameeyay tarbiyada barbaarinta fiiri hadda qofka weyn nin weyn ama laag weyn haddii Allah nagama dhigay ay caaq ku noqoto aabihiisa ama hooyadii caaq ku noqoto wala nacaya waa qof aad loo nacayo lama jecla xalli hooyadaadii ku soo barbaarisay miya hadda aad ku caasinaysaa oo caaq ku noqonaysa waa sax waa arrin bani aadamka laakiin yaa ka xaq weyn ilaahay ku soo barbaariyay ogo hooyada iyo aabaha tarbiyadoodu waa maxduud way kooban tahay laakiin tarbiyada iyo barbaarinta ugu weyn ilaahay baa ku barbaariyay calooshooda markaad ku jirtay cunto ku siiyay calooshooda markaad ka soo baxdayna cuntadii reerka ay karsadeen kuguma halaynine caana kaaga keenay hooyada hadda gaaladan xunxunka ah ee ilaahay ma jira afkooda ka dhahaya waxay istaahilaan dhulka in la gooyo
waxay istaahilaan in cara ilaahay samada dhagxaan lagaga soo tuuro laakiin ilaahay waa kariim allihii abuuray koonkan iyagana abuuray ay afkooda la baxayaan oo leeyihiin maba jiro ilaah ma jiro kuwa hadda odhanaya walciyaadu billaahi walciyaadu billah allah naga koriye kaas waxaad ku tidhaha mid baan ku idhi aniga oo jarmal oo beri ila dooday wuxuu yidhi aniga hooyaday baa i samaysay oo hooyadaa ma intay gacanteeda gelisay caloosheeda ayay sankan iyo indhahan iyo waxaan iyo isku samaysay maya waa iska samaysay ani su-aalaan ku weydiinaa baan idhi caloosha hooyada markaad ka soo baxday ma sandwich baa lagu siiyey hamburgerkay jecel yihiin iyaga hamburger sandwich baa lagu siiyey mayuu yidhi maxaa lagu siiyaan idhi caanaha hooyadii baan cabuu yidhi ya caanahaas ma ka warhaysaa markay soo baxeen uu aamusay anaa kuu sheegayaan idhi hooyadaa caano ma lahayn intayna ku dhalin caano ma lahayn caloosheeda markaad ka soo baxday ayaa ilaahay caanaheed kaaga ka soodka yaa isku beegaanen yaa isku wakti ka dhigay caanaha soo bixidooda iyo adiga soo bixidaada yaa isku wakti ka dhigay haddaadan rabbi lahayn ku barbaarinaya ku og inaadan ilka lahayn aadan bariis iyo baasti iyo hamburger cuni karin wuxuu ogaaday wax kale oo kuu suubada inaysan jirin oo aan ahayn caanaha hooyada kan kuu sameeye waa kuma waa allaahu rabb alcaalamiin haddana xubnihii aad caanaha kula soo bixi lahayd iyo idraaggii ku siiyey ku baray adduunyadoo dhan hadday isu tagaan kuuma sheegi karaan sida caanaha loo nuugo ama loo jaqo kuma bari karaan yaa ku baray ila allahu rabb alcaalamiin wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shayئa wajacala lakum الsamca wاlabsaara wاlafidata lacalakum tashkuruun faman أwlىa min xub illaahi rabbigaas jacaylkiisa kan ka weynkee waaye ku barbaariyey alam najcal lahu caynayn walisaana washafatayn wahadaynaahu najdayn u sheega haddaa aragtaan dadka nooca u hadlaya oo hadda waxaaba lagu yiri dad soomaali baaba saa noqday walciyaadu billah ilaahay isagoo hani ah oon kuu baahnayn ayuu rabbiga iskeen jeclaysiinaya insaanka ilahay wuxuu yihi alam najcal lahu caynayn laba indhood miyaanaan u samayn insaanka ma annagaan maan u samayn walisaanan carab wa asnaanan ma odhan ilka ma odhan leanna ilka uma baahna markaas haddii ilka laguu samayn lahaa dee hooyadaa waabaad dhibi lahayd mashaakil baa u geysan lahayd ilka uma baahnid walisaanan carab wa shafatayni laba bishimood oo meeshii u qabtaa ibtii u qabta oo caanihii ka ilaaliya inay dhinac uga baxaan miyaanaan u samayn yaa dhahaya allah rabb alcaalamiin muxuu rabaa inaad jeclaatuu doonayaa ilaahay jala jalaaluhu xubbigiisa inaad xubbi kasta ka hormarisuu rabaa liannahu huwa awlaa wa ancam wa akram nicmada uu ku siiyey yaa ku siin kara labadaada indhood imisaad ku iibin lahayd maanta adduunyadoo dhan maada hal il adduunyada dhan kumaad iibsateen dahabka gabdhaha dahab ay jecel yihiin dahabka dhulka yaallo oo dhan qaado hal il isii ma yeli lahayd kan ku siiyey isha waa kuma ka laba indhood kaaga dhiga waa kuma ka laba dhagood ku siiyey waa kuma ka xubnahaaga ku dhammaystiray waa kuma insaanka mushkiladiisu garan maayo nicmada uu haysto ilaa markuu waayo haddaad rabtaan indhaha nicmadooda inaad ogaataan qof ilaahay uu ku ibtileeyey oo indhihii tiray warsada isagaa idiin sheegaya nicmada aad ku jirtid qofkaagan indhaha lahow yani indhahaaga qaba qof aan indha lahayn warso isagaa kuu sheegay haddaad doonaysid inaad ogaatid nicmat albasar nicmat asamc maqalka qof aan maqal lahayn kaas warsada isagaa idiin sheegayey haddaad doonaysay inaad ogaatid ayi nicma min nicmi illaahi qofka waayey kaasuun weydii kaasaa kuu sheegi beri baa nin baa wuxuu igu yidhi candhuuftii baan iska waayeye sheekhow ii soo ducee in ilaahay candhuufta ii soo celiyo su-aal baan weydiiyey waxaan ihi candhuufta maxaabaad ku falaysaa candhuuftu annaga waa candhuufta waaba laysku cayaayo waaba laga yaqsadaaye maxaad ku fali baan ku idhi xikmaan raba inaan ka qaato cibraan raba inaan ka qaato wuxuu yidhi nicmada ilaahay qofka haysta unbaa garanaya qofka kale ma garanayo wuxuu yidhi candhuuftan adiga markaa hadda cunto cunaysid waa ku macaansanaysaa qaadada beriiskeed qaadatid buu yidhi waad ku macaansan liannahu dhaacaan baa imanaya dhacaankaas
lagu soo daynayo ee afkaaga ku jira dhadhan ma leh kharaar ma aha macaan ma aha wuxuu leeyahay ma leh lianno lama rabo cuntadii macaankeedii wax bedela dhadhankii cuntada wax bedela lama rabo marka waa saafi isagu dhareerkaasaa soo baxaya meeshii qoynaya dabadeed adigu waa ku macaansanaysaa cuntadiina sidii dhadhankeeda ahayd baad ugu tegaysaa soo saa maaha buu igu yidhi haban wuxuu yidhi anigu markaan rabo buu yidhi inaan qaado bariisa aan qaato waa inaan bakeeri biyo ka daba cabaa oo sidii kiniinka oo kale aan u liqaa waa ilaa si kale uma cuni karo yidhi marka ma ogaatay buu yidhi candhuufta qiimahay leedahay midda kale insaankan wuxuu ka samaysan yahay jirhkiisoo dhan waxyaalaha haddaan ilaahay kala qarin lahayn urkiisa isagu isma aniga wuxuu yidhi hadda haddaana biyaha isdaba wadin anigaa iska cararaya buu yidhi urka iga soo baxaya candhuuftan iyo waxaan oo dhan waxay yihiin meeshiiba waxay ka dhigayaan meel fareeshahoo aan ur lahayn bay ka celinayaan hada min allah انظر إلى نعم الله نعمك إلهي وإنسانك وسيي ميال كوبي كرا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها مركا لقوليه هي جعلوا ربك ما عندك جعلوا معها بما يغذيكم من نعمه نعم كيسكو جعلوا نعمك هذه خاصك كوءة قلت هذه خاصك كوءة أرق هذه نقطة مقلك هذه نقطة دقاق هذه نقطة سعودك هذه نقطة جركا كان إلهي وكدغي xubno laablaabmaya hal ul oo kale ilaahay uu ka dhigi karay ushaas oo kale oo la qotomiyey oo aanan fariisan karin oo aan islaablaabi karin ilaahay waa ka dhigi karay xubnahaagan iswada galay farahaas hadda gacmaha aad imisa xubin baa ku jirta haddaad doonto aad saas soo oranayso oo ay sacaba ku noqonay wax darsato haddaad saas ka tidhaaho oo maaragtay aad ballaar ka dhigto haddaad aad u sii kuusto oo feer ka dhigto sidaad rabto وسميش ياكو سمي هو من الله وليس من غير الله نعم هذه خاص كويه نعمنا ونعم عامه مخلوقات كودن إلهي يوسي دول كانوا أوغوغلي دول كيا هيا ما مريكان باهيا مروش باهيا ما دولدهن شيكتي إني أوديهم باهيا ما هيا دول كما هيا إلهي باهيا عرك يا مشي سكوهيا الله قرحنا مالين كستلير دول intaasoo milyan oo goor bay ka weyn tahay ee soo baxda ee dhaxaysa yaa haya oo wada oo mulkigeeda wada oo tasaariifteeda wada oo ilbiriqsi isdaba mar diiday adduunka haddii kale waa la wareeri lahaa xisbadan cajiib kale yaa u sameeyey huwa allahu rabb alcaalamiin waa nicamkaas caamka ah ee weliba lagugu jaangooyey hawada intaad u baahnayd baa ilaahay adduunka keenay in yar hadday ka badato eber bay ka dhigi bihii intii loo baahnaa fiiri ilaahay markuu leeyahay wahuwa alladii anzala min assamaa'i maa'an biqadar maxaa laga wadaa waa qadar ku filan ilaahay khasaa'intiisu waa badan tahay roob aan kala joogsi lahayn haddii duufaan buu isu bedelaya dadkao dhan waa baabi'inaya laakiin qadar baa ilaahay u sameeyey maantoo dhan buu waday waad aragteen waddankaa roob badan yahay maantoo dhan buu waday berrita waxay noqonaysaa qorax ingegan waa loo yarkaadinaya haddana waxoogay baa la siin waa loo kaadinaya meelaha qaarkood waa lagu yaray meelaha qaarkood waa lagu badin daruurtani waa bad socoto weeye marka roob laga dhigaayo ilaahay dhibic buu u soo daayey hadduu hal mar soo faruuri lahaa wax alla waxay ku habsato way dili lahayd maa biqadarin waa nicamullahi alcaama hawadaas oksijiinka aad qaadanayso haddii lacag noqon lahayd meeqaa bixin lahayd imisaad maalintii nafas qaadataa nin duqoon darigiisa ahayn baa wuxuu odhan jiray markii abu maxamed keef xaalak baa la yidhaha markaasu wuxuu leeyahy xamdan lilah daama alhawa bibalaash daama alhawa bibalaash alxamdu lilah inta oksijiinkaas aan qaadanayna bilaash tohon lacag lanaga qaadaya taasuu ohan jiray markaasaan waxaan ku idhi waxyaalaha ilaahay uuna siiyo dhan waa iska bilaashay biyaha markaasuu yidhi maya biyaha maalmo dhan baad ka samri kartaa 2 maalin 3 maalin 10 maalin biyo la-aan waa joogi kartaa laakiin tan hawadaan imisaad ka sabri kartaa meeqaad ka maqnaan kartaa kam yaa ku siiyey man actaak yaa kugu mana sheegan kara maanta allahu rabb alcaalamiin sooma ma rabbigaa baad xubbigiisa iyo kalgacaylkiisa qof kale ka hormarinaysaa haddaadan doqon ahayn lidaalika iimaanka in aad macaankiisa dhadhamiso waxaa shardi ah xub ullaahi inuu cid kasta kaaga weynaado axib allah
ilaahay inaad jeclaatana waxaa calaamo u ah acmaashiisa uu ku amray baad jeclaan, salaadaad jeclaan, dikriga ilaahay baad jeclaan, wuxuu ku amray baad jeclaan. u samayn maysid adoo culus, yani salaaddii iga rid ma aha, waa igu culus tahay, salaaddan iska rida ma aha. salaaddii waad ku macaansanaysaa, dikriga waa ku macaansanaysaa, xijaabka aad xidhan taheed maasha allah, gabdhaha xijaabka xidhan ee maasha waa bixub illaahi, maxabo ilaahay baad u xidhanaysaa. ma aha waa dhaqan iyo reerkii baa sidaa iyo haddii dad kale ay arkaan waa laigu caayi, maaha. ilaahay baa i amray, maadaamuu ilaahay amray, anigana aan rabbigay jeclahay, anigoo jecel ayaan xijaabkiina xidhanaya. camal kasta ood samaynayso ilaahay dartiis baad u samaynaysaa. xub ullaahi waa kow, xubu rasuulihina uu ku xigaayo, lianna ilaahaas jala jalaaluhu aan jecelnahay kana baray ee na jeclaysiiyey waa kuma? waa rasuulullah. yaan uga awleysan marka inaan isaga jeclaano rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam. xubbigiisa waxaa lanaga rabaa sidii saxaabada ay ahaayeen. dagaal baa laga soo noqday, ghaswatu uxud baa laga soo noqday, muslimiinta marka qaar baa maalintaa istishhaaday oo la laayey. waxaa dadka dhex maray in nebigii la dilay xataa calayhi salaatu wassalaam. gabadh muslimada oo ilaahay rasuulkiisa jecel ayaa waxaa maalintaa laga dilay aabbaheed, walaalkeed, ninkeeda iyo wiilkeeda. waa afartii nin ee ugu qaalisanaa: aabbaheed, walaalkeed, ninkeeda iyo wiilkeeda. intaba way istishhaadeen. dabadeed way soo baxday markii jeysku soo noqday, waxay maqashay rasuulkii baa la dilay. marka rasuulkaa wax kasta iyada kaga weyn. markaasaa waxaa lagu yidhi ixtasibii, waxaad tirsataa oo aada u sabirtaa, aabbaha waa la dilay ogow. waxay tihi inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. maada facala rasuulullah? rasuulullaahi muxuu sameeyey? maxaa la yeelay? waxaa la yidhi waa nabad qabaaye, wiilkaagiina waa la dilay. iga daabay tihi inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun. rasuulullaahi see buu yahay? uu nabad qabaa baa la yidhi. waxaa la yidhi ninkaagiina waa la dilay. waxay tihi inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun, laakiin rasuulullaahi iga warrama, muxuu qabaa? waa fiican yaha la yidhi. waxaa la yidhi walaalkaana waa la dilay. inaa lilahi wa inaa rasuulullaahi bay leedahay taa. waxay tihi rasuulka ilaahay oon arko oo lugihiisa ku socdo mooye ma degayo. markaasaa la yidhi wakaa rasuulullaahi socda. markaasay kelimad cadiimay tihi, waxay tihi kullu musiibatin bacdaka jalalun. musiibo kaste oo adiga kaa soo hadhay waa wax xaqiiroon waxba ahayn. aabbaa dhintay, hooyaa dhimatay, wiil baa dhintay, hebel baa, adduunka o dhan baa burburay. maa yuhimuna, mar haddaad rasuulullaahi adigu lugahaagii adoo ku socda aan mar indhahayga kugu arkay. haadaa xubu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam oo laga doonayo. xubu rasuulillaahi qofka qalbigiisa uu galo sunnadiisu jeclaadaa, gurigiisu sunnadiisa. wuxuu ku dadaalaa maalin kasta inuu sunnada nebiga wax ka kororsado, wax u siyaadaan, marba sunnadii nebiga wax uga siyaadaan. sunnada nebigu baaraa, suu wax u cuni jiray, suu bay u seexan jiray, see bay noloshiisu ahayd, see buu adduunyada tan u arkayey. annagu hadda aanu hamigeenni iyo hamigeenni ay noqotay. see rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam zuhdigii ku noolaa, markii ay aswaajtiisu, zawjaadkiisu ay ka dalbeen inuu nafaqada u yar kordhiyo. ma aha guriga iga bedel iyo fadhigii baa igu duugoobay iyo daahyadii baa la bedelay iyo alaabtaan aad qasaysiin, mahaas maa dhan ma aha. ma aha waxoogay nafaqada noo yar kordhi. oo nafaqada la kordhinaya waa maxay? dee bil iyo 2 bilood baan dab la shidayn, khayraadkiina waa yimaadeen, laakiin nolosheedna meeshay taagan tahay. yaa rasuul allah, intaana isaga jawaabin, ilaahay baa qur-aan soo dejiyey ilaa yowma alqiyaama la akhrinayo, si muslimad kaste ay u ogaato qiimaha adduunyada ay ka taagan tahay, ilaahay iyo rasuulkiisa meesha ay ka taagan tahay. yaa ayuha الnabiy qul liأزwaajik in kuntuna turidna alxayaaةa الdunya waziinataha fatacalayn umatickun wausarixkuna saraaxا jamiila وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نبي أمر لسي وحلين خيار قلي زوجات كاغا حد كترا إن كنتن تردن الله، تردن الحياة الدنيا،
nolosha adduunyada wasiinataha quruxdeeda haddaad doonaysaan fatacaalayna kaalaya umatickuna wausarixkuna saraaxan yani waa idin furayaa waxaana idin siinaya wixii haweenka la siin jiray markii la furo idin dhabina maayo si wanaagsan baan idin furayaa wax dhibaatana idin soo gaari maayo haddaadse tihiin kuwa doonaya allah iyo rasuulkiisa iyo addaar alaakhira waa allah wاrasuul wاdaar alaakhira kuwa jecel haddaad tihiin oo doonaysiin faina allaha ilaahay acadda lilmuxsinaati minkuna ajran cadiim muxsinaadka idinka mida wuxuu u diyaariyey ajri weyn yaa diyaariya allah iyaga qalbigooda marka ilaahay wuu ku weynaa ilaahay markuu yidhaha shay baa weyn wax weyn bay u arkayaan wax weyn bay u arkayaan annaga hadda markaan iska maqlayno xaraf qur-aanka qofkii akhriya 10 xasan u helaya soo waxba waxaa kaana inaad maqashayba kama dhigaysid soo ma ayaga maya wax weyn u lahaa ilaahay waxa uu agtiisa ka weyn wax weyn buu agtooda ka ahaa rasuulu llahi sala alla alayh wasalam markuu khiyaar geliyey ummuna caaishuu ka bilaabay radia allahu canha wuxuu yidhi wax dhibaato a ma jiro labadaada aabbaha iyo hooyadaana la tasho haddaad doonaysid islaamnimadaada iyo diintaada iyo muslimad caadi aad iska noqonaysaa wax ciqaabana ma jiro waana kaala tegaynaa oo anigu dee adduunya haddaad doonaysid adduunyada ma wada joogayna waay macnaheeda rasuulu llahi sala alla alayh wasalam maya waxay tihi waxaan doonayaa oon ilaahay iyo rasuulkiisa iyo daar alaakhiran anigu doortay bay tihi gabdhaha kale ee xaasaskaaga kale ha iga sheegin markaasuu yihi may waan u sheegayaayo aniga wax qarile ima dhihin waan u sheegay mid kastana u sheegaya radia allahu canhuna wa ardaahuna sidii buu u sheegay mid kastana uu sheegay caaisha ikhtaarat illaaha warasuulahu wadaar alaakhira adigana maxaad dooratay allaha warasuulahu wadaar alaakhirata ayaan doortay maanta maxay heleen waxay heleen inay noqdaan ummahaat almu'miniin zawjaati rasuuli illaah inay nebigii maciisa ahaadaan fi ljanna ayay noqdeen hadday adduunyo dooran lahayn xaggay maanta mari lahayeen annagana waa ka haddayna haysataa muslimad kaste iyagaa qudwo ku ah inaad ku dayatid rabbigaa jacaylkiisa rasuulkiisa iyo addaar alaakhira daar alaakhirana inaad jeclaatid baa lagaa doonayaa arrinta labaadna waa inaad mu'min kaste iyo mu'minad kaste ilaahay dartiisu jeclaatid haddaad kaa dhab tahay inaad ilaahay jeceshahay rasuulkiisana jeceshahay aakhirana jeceshahay walaalkaaga muslimkaa walaashaada muslimadda ah jeclow qabiil ha ku jeclaanin isku reer baana ha u jeclaanin waxbaanu maya haddaad isku qabiil tihiin ama walaalo tihiin ama ilmaadeer tihiin haddana muslimad fiican isla tihiin jeclow laakiin inaad kan soo dhowaysato waa reer waxaan nahay reer hebel baanu isla nahay diinna aydaan isugu iman kii muslimka walaalka ahaa ama walaashaadii muslimadda ahaydna aada fogayso leanna waa qabiil kale markaa run kamaad sheegin ilaahay jacaylkiisana run kamaad sheegin rasuulka jacaylkiisana run kamaad sheegin aakhiro jacaylkeedana run kamaad sheegin haddaad run ka sheegayso ilaahay dartii baad qofka u jeclaanaysaa ilaahay dartiis baanad qofka u nacaysaa maxaa laga wadaa adiga muslim haddaad tahay muslimada gaalka adduunka ugu xun necbaasho shaksiya lagaama rabo gaalka gaalada ah kufrigiisaad necab tahay mooye in isaga khayrka aad la jeceshaa waa lagula rabaa khayrka la jeclow muslimka walaalkaa ah muslimadda walaashaa ah ee muqasirada ee salaada gaabisay diinta gaabisay iyada shaksiyan u nac ma aha camalkeedaad nacaysaa laakiin iyada waxaad ku dadaalaysaa inaad hanuuniso oo diinta ilaah ugu yeedho ood ilaahay jeclaysiiso ood khayraad kala hadashabaad isku dayaysaa had iyo goor taasaa lagaa rabaa marka wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah waxay ka mid tahay waxyaalaha lagu helo xalaawat aliimaan dhadhanka iimaanka macaankiisa lagu helaa tan ugu dambaysa waa kufriga iyo inaad nacdo gaalnimada inay kula xumaato gaalka aada nacdo gaalka aad nacaysa waa maxay camalkiisaad ku nacaysaa gaalnimadaad nacaysaa kufrigaad nacaysaa dariiqadiiyo dariiqadoodaad nacaysaa waxaad u kahanaysaa sida aad u necab tahay adoo soo jeeda in dab lagugu tuuro qof jecel ma leh sidaasoo kale aad gaalnimadana aad u nacaysaa taasna waxay ka mid tahay calaamaati xalaawati aliimaan bay ka mid tahay marka aan warka soo gabagabay waa ku dheeraaday wakti dheerna laymaba siinin axmaal kale iyo howlo kale ayaa jira waxaan warka kusoo gabagabaynayaa akhawaati fillaah inaan horta ilaahay dartiis subxaanahu watacaala isu jeclaano inaan allah xubbigiisa xubbi kasta ka hormarino meel cidlana ma aha caruurteenna aan ilaahay jeclaysiino ogow ilmahaa yar cuntada aad siinaysid
baad ilaahay ku jeclaysiin kartaa bariis waaye bariis soma bariiskan yaa sameeyey ku dheh waxaad u sheegtaa bariiska in ilaahay sameeyo xabad bariis adduunkoodna hadday isu tagaan ma samayn karaan ilmaha saa qalbigooda aad ku dhibcisaa jacaylka ilaahay baa qalbigiisa ku dhibcaya caanahan aad siinayso waxaad ku sheegtaa warshad adduunka samayn karta inaysan jirin ilaahay baa dhiig iyo uus dhexdooda caano macaanoo cad ka soo saaray u sheeg saa ku jeclaysii ilaahay u jeclaysii ilmahan cuntadooda cabidooda dharka ay xiranayaan kullu shay ilaahay baa na siiyey ku dheh sidaas ku barbaari innaga dhexdeennana aan ilaahay isjeclaysiino qofka ilaahay jecel calaamadiisa waxaa ah inuu had iyo goor jecel yahay inuu rabbigiis ka sheekeeyo beri baan qole meel makhaayad fadhiya ugu nimid markaasaan idhi intaad saacado badan iska fadhidaan ma dacwo iyo diinta ilaahay ka sheekaysaan nin baa wuxuu yidhi oo maxaan aqaanaa u sheega waxaan wax kale ha sheegin ninkaan saaxiibkaa ku hor fadhiya waxaad ku tiraa warniyow anigu laba tintaada cibro iyo waanaan ka qaatay waa tinta kugu taal hadda tinta madaxa way iska dheeraataa tan oo xiribaha oo indhaha ka koraysa iyo kuwan xiribaha leeyahay soo indhaha ka soo baxa soo ma iyo xawaajibta sunnooyinka bay dhahan Soomaalida kuwaas iyo kuwan yaa yiri meeshaas ha dhaafina labada amar yaa bixiyay timaha madaxa waa ka gabdhaha timaha dheeraystaan yaa iska sii daayay kuwan laakiin yaa ku yiri meesha ha dhaafina waa rabbul caalamiin xaad jirka haddii ay sida tintaan madaxa noqon lahayd soo dhibaato weyn ma dhacdeen inta u sheeg baan ninkan ku hor fadhiya waxaad kale u sheegtaa ciddida iyo ilkuhu labaduba way soo baxaan laakiin ciddida way jilicsantaho waa ka usbuuc kasta waa iska jaraa waa la iska jaraa sunnadana in la iska jaro way ugaada xataa haddaa gabdhaha daatiin kuwan waxyaalaha gaalada jecel yihiin oo ciddida la dheeraysto ma wanaagsana waa sunnada waa inaad iska jartid weeye usbuuci markaad joogtid mar iska jartid marka ciddidii waad jaraysa haddana way soo baxaysa ilkuhu laakiin meeshooda ma dhaafayaan ka warran baan haddaad ilkuhu noqon lahayn sida ciddiyahoo kale oo markaad muddo joogtid ba dhakhtarka iga soo kala jarjara aad dhihi lahayd soo dhibaata kuguma dhacdeen intaa kaliya haddaad u sheegto qofkaa ilaahay uu jeclaanaya xubbiga ilaahay baa yaa qalbigiisa yaa ku beeraya marka taa aan ku dadaallo dacwadana aan ku dadaallo qur'aankana aan la noolaano qur'aanka saaxiib aan ka dhiganno qur'aanka qofka xifdisan alxamdulilah sida hadda gabdhaha qur'aanka inoo xifdiyo oo kale intiina kalena waddada unbaad haysan baan u malaynayaa ama horaabaad u xifdiseen qur'aanka xifdigiisa inaan ku dadaallo liannahu waa kalaamullah haddaan ilaahay jeclaatay hadalkiisana waa inaad jeclaato marka qur'aanka aan baranno kuwa bartay oo xifdiyey iyo kuwa baranaya oo aan noqono qofka ka soo haray ee le anigu hadda mana baran karo waa da'baan noqday ama hawl kalaan ku mashquulsanahay wardi yeelo maalintii qur'aanka waqti aad akhrisato samayso xataa haddaad carabka ka akhriyo weydid cajalad soo qaado ama bahalkan mobilkuba hadda ka buuxa musxafkiina soo dhigo maaha laakiin inaad mashquulsan tahay adoo feejigan oo dhagaysanaya oo ninkii akhrinaya la soconaya sidaas ku akhriso oo ku dhammee qur-aanka bishiiba mar dhammee nuur bay ku noqonaysaa hidaaya ku noqonaysaa guriga naftirkiisa aad qur-aanka ku akhrinayso ilaahay barakaad iyo anwaar ayuu soo dejinayaa midda kale aniga waxaa la ii sheegay dadkan soomaalideenna halkan joogta badi inay musaafiriin yihiin oo sii socdaan oo waddamo kale u socdaan oo meelahaas maaragtay gaalada caddaanka ay joogaan ay waddamadaas usii socdaan ayaa la ii sheegay hadday arrintu ay sidaa tahay dhib ma leh hadda iska noqdo oo ha tegina maba idinku dhahayo haddaa idinku dhahana maba iga yeelaysiin laakiin midaan idiin sheego meel kastoo tagtaan ilaahay baa iska leh ina alarda lilaahi canada yaa iska leh ilaahay baa iska leh maraykanka yaa iska leh ilaahay baa iska leh yurub iyo finland iyo holland iyo sweden iyo meel kaste allah rabbulcaalamiina leh ilaahay meel kastoo tagto ku baro ku caabud tegidda aad tegaysidna biniyati dacwati ila allahi u tag waxaad u tagtaa qof muslimada diinteedii xambaarsan oo doonaya in diinteedii ay dadka kale gaarsiiso